يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalada ku xiran kanaalka xogta salafka waa salaamaya. salaan kadib fadhigeenaan galabta insha allahu tacaala waxaan kusoo qaadanaynaa su-aalihii walaalaha naga soo gaaray qeybo ka mid a. taqriiban waxaan kusoo qaadanaynaa su-aalo 4 ah oo aan insha allahu tacaala su-aalihiina soo gaari ka mid ah. su-aasha koobaad saa-ilka waxa uu leeyahay walaalada ka mid ah, biyaha zamzamka ee maka laga soo qaato madiina waa dhici kartaa in laga soo qaato, laakiin asalka u ah mako. haddii biyo kalo lagu daro ka waran arrinta iida ah, zamzamnimadoodii ma baaqi ma kusii ahaanayaan oo ma sii jirayaan? barakadii iyo khayrkii barakadii loo soo qaatayna ma ka zuulaysaa haddii biyo kale lagu daro, mase waa maya buu leeyahy walaalka. jawaabtu waxaan leenahay biyaha zamzamka biyo kale in lagu daro horta waxba dhib ma laha. asalka waxay ahayd in sidooda lagu isticmaalo oo sidooda lagu cabo, ama haddii lagu qabaysanayo sidooda loogu qabaysto iyo wixii lamid. laakiin haddayba dhacdo biyo kale lagu daro oo laga yaabaa qofka biyihii zamzamka uu isleeyahay barakadooda iyo khayrkooda ugu faa'iidaysa biyo kale ku badso, ayadu wax dhibay ma laha. culimada waxay ka hadleen fuqahada, haddii qof uu ku dhaarto inaanan biyaha zamzamka cabaynin, uu ku dhaarto kadibna biyihii biyo kale inta lagu daro ilaa biyihii kale ay ka bataanba biyihii zamzamkaha, biyihii zamzamka ka badan ayaa lagu daray, kadibna waa cabi. qofkaas waxay dhaheen waa dambaaba. maxaa yeelay mar walbaba biyaha ha ka bateen hadday rabaan, laakiin qadarkii zamzamkii intii uu la eg yahay ayaa biyaha ku dhex jirto, barakadiisana waxay la egtahay haddaba intii biyaha ee isaga uu ka yahay iyo nisbada uu ka joogo. marka in biyo lagu daro way dhici jirti oo biyo kale lagu badsado, zamzamnimadoodana ka bixi maayaan. haddaba qadarka ay leegyihiin intii ay biyaha ay u joogaan oo ay leegyihiin ayay zamzamnimadooda jiraysaa. marka wax culayseena ma laha taas, laakiin asalka waxay ahayd in sidooda lagu isticmaalo. su-aasha labaad saa-ilka waxa uu leeyahay, maadaama ramadaankii hadda aan soo dhammaysan ilaha naga aqbalo 6dii shawaalna la iska rabo, bisha hadda shawaal inta lagu dhex jiro 6dii ay tahay in la soomo, ma ii bannaan tahay inaan kalaga gooyo? maalan inaan khamiistii jimcada kaleeto aan gishto, ama khamiista iyo isniinta iyo maalmaha aan ku aadiyo, inta kalena on iska cuno, iska cabo, iska afursanaado. jawaabtu waxaan leenahay waxba dhib ma laha inaad kalaga geyso. muhiimadda lagaa rabo waxaa weeyaan in aad la timaado un bishaan dhexdeed aad la timaado ayaa lagaa rabaa. taasaa ugu muhiimsan oo ugu saxiixsan, laakiin inaad isku xijiso waxba laasim ma aha. culimada fiqiga say ka hadleen sida imaamu nawowi raximah allahu tacaala iyo keyrkiis bay ka hadleen, way iska bannaan tahay inaad kala gegeysa. inaad saa laakiin isku xijiso iyadana waa kuusii fiican tahay, aday kuu fiican tahay, cibaadada aad samaynaysana waa u fiican tahay. laakiin haddaad kala jajarato asal ahaan way kuu bannaan tahay. saa-ilka saddexaad waxa uu leeyahay, su-aasha saddexaad, daawado garka macnaha waxa weye haddii la maryo bixiso oo badiso inaad marsado ma ii bannaan tahay? waxaan leenahay su-aasha garka keliya waxba khaas kuma aha, tinta daawada bixiso ma ii bannaan tahay, ayay ku fiican tahay sidaa in loo ballaariyo? jawaabtu waxaan leenahay way kuu bannaan tahay haddaynay wax dhib keenaynin. daawada hadday tahay daawo dhib geysanayso oo jirkaada dhib u geysanayso,
ama xanuuni wax laga qaadi karo hadday tahay maya kuma bannaano. laakiin hadday macnaha iska tahay wax sida saliiddii camal iskiga marsanayo kadibna tinta ay ku baxayso, taa waxba dhib ma laha. tinta waxyaalaha saliidda loo maray waxaa ka mid inay hagaagto, inay baxdo, inay ku quraxsanaato ayaa loo marsadaa. marka hadday u nooca iska tahay waxba kaloo dhib ayna lahayn, chemical wax kale ayna lahayn, jawaabta waxaan leenahay waxba dhib ma laha, waadna marsan kartaa insha allahu tacaala. su-aasha afaraad oo ugu dambaysa oo aan soo qaadanayna waxaa weeyaan, saa'il ayaa waxa uu leeyahay haweenaydayda hadday iga diido hawshii macnaha sariirta, dabcan galmadii baa laga wadaa, hadday diiddo si cad ay u diiddo iyadoo wax cudurdaarna aan haysanin, maalan ma xanuunsano, waxyaalo kale oo macnaha xanuun lamid ma qabto, way caafimaad qabtaa, aniga iidaba waa isla ognahay, laakiin hawshii gogosha way diiday, dumar kalena waa la qabaa. marka xuquuqdii laygu lahay oo dumarka inaan u simo aheedoon midba habeenkeeda inaan u hoyda ay ahayd, iyo cadaaladdii inaan u sameeyo layga rabay, maadaama ay hawshii gogashii iyo galmadii iga diiday, welima sidii baa laygaga rabaa, way waajib ugu tahay, mase waa ka danaysan karaa oo xaqeedu wuu dhacayaa. jawaabtu waxaan leenahay waxa haweenayda laga sheegay hadday sidaa sax ku tahay oo sida warka loo dhigay su-aasha ku socota hadday xaqiiqo u tahay oo aan waxba kale lagu dardarin, dhinac kalena aan loo leexinin, haweenayda noocaas kaleeto waxay noqonaysaa waxay culimmadu u yaqaan nushuusa, haweenay ninkeeda diiday ay ku madax adeegtay ayay noqonaysaa. hawsha hadda wadaadka uu ka hadlay ama walaalka uu ka hadlay waa hawl aad iyo aad u culus oo hadda waaba howlaha guriga ugu muhiimsan bay ka mid tahay ee lagu wada joogo. intaa in ka yar bay fuqaada waxay ku magacaabaan ama ay sheegaan inay haweenayda nushuuso ku noqon karto, xaqeedan uu ku dhacayo, biilkeeda uu ku dhici karo, haddaan carruurii markaa ay waxba joogin oo aan lagu ilaalinaynin, oo iyadoo shaksiyan biilka ay lahayd waa dhacaya, oo habeenkeedii loo soo hoyanaya uu ku dhacaya. waxyaale aad u yaryar sida maalan guriga inay ka baxdo iyadoo ninkeedii aan ugu idmin ay duurka iska aado iska wareegto, iyadoo markaa cilmi sharcina aan soo baranaynin, biil iyo wax ayada looga baahan yahay oo aana ninkii shaqada haynin ayna soo raadinaynin iyo wixii lamid adi wax xaaje oo markaa loo baahan yahay iyadoon u bixin, haddii ninkeeda idinkiisa la-aantiisa iska baxdo nushuuse ayay isu bedelaysaa, xaqeedan waa dhacaya. oo wax yaryar waa waxa culimada ay ka hadlayaan. waxay nushuusu waxyaalaha dumarka ku noqdaan ka mid oo ay culimadu ka hadlaan in ninkeeda inuu la fara ciyaaro uu iskaga raraaxaysta jirkeeda, in aad macnaha waxa ay diido, galmaba maaha taa, hawsha cusleedba ma aha, waxa yaryarka hadday diidayba culimadu waxay dhahaan nushuusay noqonaysaa iyadoo wax cudurdaar aysa jirin. ka waran haddayba hawsha weynaadba diido, iyadoo way kasii xag jirtaa wey. marka wax waajib kuga ahaanayo ma laha, su-aasha saad usoo gudbisa hadday tahay wax waajib kuga ah ma laha, xaqeedan gabadhaas waa dhacaya. laakiin intaa ka hore waxaa fiican in dadka badankooda ama gabdhaha qaybo badan oo ka mid ma yaqaanaan xuquuqda lagu leehay iyo shareecada islaamka waxay ka tiri, in la wacdiyo ayaa asal asu ilaahay ba sheegay subxaana wa tacaala, faciduuhunna, in la wacdiyo xaqa lagu leeyahay iyo wax oo dhan iyo wax lagu wada joogo iyo qiimahay leeyihiin oo dhan in laga dhaadhiciyo. haddii ay diiddo bal haddana hijro in lagu dayo oo macnaha un si un looga madax dadbo oo weliba guriga dhexdiisa, haddii ay suurtageli wayso, haddii laisleeyahay xoogaa in la shabiixiyo bay wax ku qaadanaysaan, haddana in la shabiixiyo oo la garaaco, ul aan markaa dhaawac iyo midna aan gaarsiinaynin, meelaha halisna aan lagu dhufanaynin. intaba mid haddii laga noogo de markaa kadib go-aan baa laga qaadanaya. marka waxaa weeyaan tartiibaadka in la mariyna waa fiican tahay, laakiin haddii intaa midna ay gabadhii qaadan wayso nushuuse ayay noqonaysaa oo waa kaa marka xaqin uu kaa dhacaya. jazaakum allahu khayran.
kelimadeenni galabta intaa ayaan kusoo koobaynaa. hada wabillahi tawfiiq. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.